waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta kulligiina waa idin salaamay sidaa ujeediin waxaa soo socda Windows 7 marka Windows 7kan wuxuu leeyahay virus marka waxaa rabaa haddii uu virus ku dhaco kombiyuutarkaaga sida uga bixin lahayd haddii aad gali lahayd kombiyuutarka dhexdiisa sida ujeedid waa caafimaad qabaa dhib ma lahan kan waa wax caadi ah u sameeyey wax aniga ugu talagalay marka kuwan waaye virus-yaashan ujeediin aan geliyey oo wax iska caadiyeedee dhib ma leh kombiyuutaryaasha qaarna dhib u keenana laga yaabaa marka sida ujeediin wax taskbar haddaad tagtiin wax iska caadiya waxyaalaha qaar marka haddii aad kombiyuutarkaada geli laadahay oo virus leeyahay maxaa qaban lahayd maxaa waaye jawaabtaadu waxaa waaye waa inaad isticmaashaa bootable cd antivirus rescue cd inaad isticmaashid aniga meeshan waxaa samaystay antivirus yaala samaystay marka waxaa rabaa qof kasto in uu haysto antivirusyadan toolskan waa tools fiican oo idin anfacayo kulligiina marka kombiyuutarka shidaa kombiyuutarka aad daminaa kadib waa soo shidaa waa idin tusinaa waa kana saradu waxaa waaye waa softwareka uu isticmaala inaa kulli hal meel iskugu keeno marka waa idin tusinaa super grab disk 2 waxaana ujeediin dhan memory tester oo waxyaalo idin anfacayo waa waxyaalo haddii kombiyuutarkaada hadduu si fiican u shaqayn waayo meesha ugu fiican waa tan ujeediin antiviruska samaynaysid antivirus yaala ay ku jiraan sida bitdefender sida ujeedid antivirus live cd dr web kaspersky iyo waxaa idin tusaa dr web laga yaaba laakiin lessonkan waxaa ku qaadanaynaa kaspersky dadka hadday iga dalbadaan inaan lessonka sameeyo sida loo sameeyo oo la iskugu keeno tools badan ayaa yaalo haddaa idin tusiyo hadeertaan waa kana sida ujeediin waxaa ka sameeyey ayagoo oo caadi ah normal ah kan waxaa waaye drivers back solution kan waa ujeediin waxaa waaye dr web live cd kan hernes boot cd aa lahaa asagana cashiraan ka samayni doonaa kan waxaa lahaa system rescue kan trinity ayaa lahaa kan ultimate boot cd aa lahaa kanna waxaa waaye dan midkan anaa samaystay dan aa lahaa danaa ku qortay markaa samaynaya marka kulli danka oo midkaana hadda idin tusayo waa kana hadda kombiyuutarkeeni virus ayuu leeyahay inta markaa imaado waxaa dooranaa midkan kaspersky 10 waxaad doorataa graphic mode kadib graphic mode markaad dooratid waxyaraa sugaysaa waa sugaynaa waxyar ilaa uu screenka imaanaya fadlan subscribe dheh si aa mar kale u aragtid videoyaasha aan soo sameeyo saaxiibadana la share garay fadlan ha iloobin inaad like na saartid aa commentina ka bixisiin qofkii u baahdo cashirada in laga sameeyo video fadlan ila soo xiriir isoo sheeg videoga arabtiin waa idin sameynaa filid ma lahan hadeertaan haddaa ujeedid waxaa waaye wuxuu leeyahay threat has been detected u dhahay waa fiirinaynaa threat has been detected active sidaa ujeediin waa 7 bisha maanta waxaa waaye sidaa ujeediin waa 2/15/2017 sidaa ujeediin detected waxaan dhan waa high haddana sidaa ujeedid waa high kulli waa high soo ma ujeediin marka kowda hore markaa soo download garaysid inta imow
update dheh. Marka ugu dambeysa aan update gareeye waxay ahayd 2015 bishii 6aad 3deeda markaas ay ugu dambeysay inaan update gareeyo. Marka hadeertaan waa update gareynaa. Update-ka wax yar suga kadib inta imow status-kaan dheh. So ani mar hore aan biraweynaye marka saa ujeedid stop tuu dhahoyaa. Marka wax yar kadib waa sugaa intuu ka dhameynayo update-kan. Waxaan isku dayaa inaan Google geli karo. Saa ujeediin qadka hadda waa soo daayay inuu shaqeeyo waa markaan. Inuu shaqeeyo waay. Network hadeertaan sida ujeediin waa inuu shaqeeyaa. Network ku xiray. Wireless malahan marka ana waxaa waaye Ethernet cable aa isticmaali kartaa. Markana Google waa geli karnaa. google.com halkaas sida ujeediin hadeertaan updating aa dhahaynaa. Sida ujeediin update-ka wuu socdaa 46 ayuu marayaa. Marka haddana waa idinku soo celinaa 80 markuu gaaro. Hadeertaan sida ujeediin waan dhameynay update-kii inaa idin soo sheegay 80 markuu marayay laakiin waxaa keenay waxaa usoo dhaweeyay wireless-ka meeshuu yaalay. Marka iyo Ethernet-ka wireless-ka isticmaalo waxaa waaye Ethernet kula xiriiriyay. Marka sida ujeediin waa update gareeyay. Update-kana meeshaan hadda ujeediin 22.14.11 wuu iska dhahaa laakiin maanta waxaa waaye 2.15 waaye. So marka start aa dhahaynaa 17 minutes ago duration 6 minutes start aa dhahaynaa. Resume aa dhahaa meesha kasii bilaabo. Adinka laakiin waxaad dhihi kartiin start haddaad dhahdiin wuu idin sii soconaa. Okay markuu dhameeyo ayaa idinku soo laabanaa. Laakiin wax yar aa sugeynaa intuu 1 ka gaarayo si dadku u arkaan. Sida ujeediin waxaa dhahaynaa delete aa dhahaynaa. wax kasto delete. Midkuu soo tuuro horaa delete ka dhahaynaa. Active threads haddaad tagtid waa kuwana. So kuwa waxaa sii tagtaa quarantine disinfected. Okay waa kana mid kale soo tuuro haddana. Markasta sidaan u soo tuuraa delete la sii taawo bis. Malicious software has been detected in your computer. You are advised to neutralize as soon as possible. Kan taabo. Apply all aa dhihi kartaa. Intaa taabanay delete aa dhahaysaa markaas. Intaa taabanay delete. wax yar kadib buu soo tuuraa. Software PC halka ku jiro PE patch meeshuu ku jiro waa ujeediin. Marka skip recommended u dhahoyaa skip aa dhahaynaa. Delete archive aa dhahaynaa. sii soconaynaa wuu wadaa hadeertaan saving. Object dhib ma lahan skip iska dheh dhib mala wuxuu qaban waayo waxaa kale oo gelinaynaa waxaa la dhahayay Dr. Web asagana waa gelinaynaa iyo Bitdefender inaad geliyana waa isku daya. Waxaan isku dayaa inaan videoga ka dhigo inuu yaraado waqtiga videoga. Sida ujeediin kuwan dhan waa la bixiyay 5 waaye 2 ujeediin wuxuu dhahayaa oo 2 ama 2 aa mooda inuu dhahay skip. Marka hadhooti galno systemka dhexdiisa waxaa isticmaali doonaa Hitman Pro iyo Malwarebytes labadaas aa la isticmaalaa markasto.
kana marka la dhahaa waa sugaa markasta waxaa fiican 2 jeer inaad ku celisid. waa kana wuu wadaa scanka. marka sidaa ujeediin speed uu ku wadaa systemka. wax oo application badan kuma jiro. marka waa system virus leh ku shubo bis iyo software oo hore ku jireen oo yar 4 xabo miya ku jirtay. marka speedka sidaas waaye. maxaa laga yaabaa kaaga inay qaadato 1 saac 2 saac 3 saac inay qaadataa laga yaabaa. marka waa kana meesha update-ki waaye. quarantine haddaad taabatid waa kan geeskan noo yaala detect status kan haddaad taabano wax yar sugeynaa. markaas haddana waa laabaneynaa gadaal u laabaneynaa waxay soo gelineynaa Dr. Web fiirineynaa asagana wuxuu qabto. markasto waxaa u baahan tahay inuu cajalad meel kuu taalo ay ku jirto waxaan ay ku jirtaa loo baahan yahay. waxaa ka wadaa tools-kan aa loo baahan yahay. marka waxaa idinkugu talinayaa inaa cajalad soo gadataan. cajalad waa raqiis waana hayni kartiin. haddii hadaad haysanin cajalad aa ku shuban kartaa meel aa dhiganaya markaa u baahatid waa geline. hadduu virus kugu dhaco si aa u tagin dukaanka ama meel kale aa uga doonanin wax oo qof ku saacideeyo oo kaaga bixiyo viruska. so hadeertaan sidaa ujeediin kan wuu dhameeyey howshiisa. sidaa ujeediin kulli wuu bixiyey. gadaal aa u laabaneynaa exit aa dhaheynaa. waa deminaa markaas systemka. kadib cajalada waxaa ku laabaneynaa meeshii restart hadaa dhaho. sida ujeediin screenka hadda imaanay. marka waxaa isticmaaleynaa labadan software la dhaho Malwarebytes inuu virus yar ku haray computerka. marka waa kana waxaa isticmaalnay qaybtii hore waxaa isticmaalnay Kaspersky Risky CD. hadeertaan sidaa ujeedid waa hubineynaa in wixii dhan ay baxeen. kanna waa sida waxaa hubineynaa inuu virus dhan ku jirin systemkeena. hadduu ku jiro labadooda inoo sheegayaan. labadan software aa ujeediin waa software khatar ah oo powerful ah. qaar waxay dhahaan Hitman Pro maahan laakiin waxaa la isticmaalaa maxaa la dhahayaa Bitdefender iyo Commodore. dadka qaar jecel yihiin laakiin aniga labadan aan jeclahay. laakiin systemkayga caadiga ah waxaa igu jirto MC-Cafe ay igu jirto. laakiin labadan caadi u jeclahay. sidaa ujeedid next aa dhaheynaa. next marka qaar markaa aragtid 30 maalin markay gaarto waxay ku dhahayaan mar kale waxaan bixinaa mid kala soo download gareysanaya wuxuu ku dhahaa trial periodki waa dhaaftay. marka intaa tagaysaa waxaad tagaysaa inta waxaad tagtaa C-gana tagaysaa. hada organize dhahdid think properties ma organize hadaa dhahdid inta aadid waxyar halii dulqaato. waa kana wuu keenay wuu update gareynaa. waxyar halii dulqaato. hadaa inta aadno si aadno programka wuu qarsan yahay. program folder program data wuu qarsan yahay. program data wuu qarsan yahay. control panel aa tagaynaa. kadib waxaa tagnaa
folder aa qoreysaa folder hadii kale folder option kaa taabaneysaa kadib view aa dheheysaa show hidden files aa dheheysaa hidden files saa ujeedid markaasaa program data uu soo baxay laakiin shortcut meelahan way jirtaa hadii aad raadisid intaa galeysaa waxaa arkeysaa Hitman Pro intaa ku arkeysaa waa kana files intuu soo gala dhan kulli aad delete gareyneysaa kadib wuu kuu shaqeynaa marka hadeertaan waa kana you are not protected turn on field protection layer laakiin hadda ma u baahnin waxuu hadda scan le u baahannahay bis kanna waa kana wixii wuu wadaa laakiin weli wax ma soo saarayaan labadooda sida ujeediin waa is agdhigaa soo yareynaa xeeralii dulqaad kan waa kana Hitman Pro wuu keenay laakiin wuxuu dhahay wax kuma jiro waa clean oo dhahay waa clean marka kan kala fiirineynaa malware partska quarantine hadaa tagno weli wax kuma jiro marka scanka hadaa fiirisid wax yar hadii dulqaato waxaa waaye systemka laba antivirus isla the same time isla socdeen marka kan wax yar wuxuu noqday hard uu noqday oo ujeediin scan hadaa dhaho mar kale waa kana sidaa la socotiin waa kan waa habeeyey intuu marwaya marka welina wax ma keenin marka waa idinku soo celinaa markuu dhameeyo insha Allah hadduu virus arkin insha Allah sidaa ujeediin uu dhamaaday scankii waxna ma ku jiro view report hadaa dhahno waa kana scan type thread uu ahaa completed versionka trial uu ahaa administrator marka scan date ka fiiriya waa maanta waaye videoga waxaa sameeyey habeen Africa saacadan waxay u tahay hadda waxay u tahay 10 saac ama 4 sidii dhaxan iyo 18 daqiiqo idin tahay marka waa kana PC house cashirkan wuxuu ahaa cashir aan idinku tusayay toolska aan isticmaalayay iyo sidii hadduu virus kugu dhaco sidii aad uga bixin lahayd computerkaada fadlan subscribe garee like garee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.